TikTok waa meelaha ugu badan oo dumarka Soomaaliyeed isku qaawiyaan wal muuqaalka waxay la daawo islaanta weynta waxyaabaha ay ku hadlayso iyo qaabka muuqaalka diyaha daawano ka bacda ka falcelino maartay commentiga ku furaya asxaabay wala sa daawano bris and some goat. No, well, the meat is done. I'm about to just no pancake. We don't need pancake. Does your husband understand Somali? Wallahi, oh billahi tala wo barano ya baby. I'll tell her that. Have Somali wo yaqaan. I'm saying No. At least aku xamalina naagtana Somali ha. Oh bay waso Abaq malaga foqay ama ma hadda lagu dhagan anagana oo lagu soo darooya. Anina maxaa iga shaqo jira ninkii iga dhaganaado ninkii kale jannada la ii wadaan dadkan ani warkooda ma ka jira haye kaasa muna saasa tahay dilido haye madiidano baan meesha iyaga ii riixan okay le taaganyay ani laakiin inta qalubta iyaga madaalay karaan intii ay dhammaan qalbigay ka jiro ma arki karaan waa may so I don't care whatever they say. Hey, I'm living life. Alhamdulillah, ilahi ki ay jeel taas ay badan. As you said, mashallah, mashallah. Period. Look at these nails. Look at the nails. Period. Yup. Period. Galap ki galo yaga ay gutitiro ay mahay ka shaka gali. No, well I took a social media break. I was the main entree. I was the main dish. Oh, that feels so good though, to be honest. Bye, so do. Thank you, Abay Maano. Nia, let's get out. Get out. Out. Muna maanta irka ka jirta qaata oo asfaraxsan. Muna wax laga qaban kara ma lahan dadka dhulka leeyihiin Soomaalida burbursadaan. Muna waa asfaraxsan tahay. Wallahi, oo billahi, oo tallahi abayo. Hooyadee teed aad ninkan furma furay. I'm sorry. I'm like about. No, I know what you accent. I refuse to let okay, bogda ninka hadii ku dhiway ada ogsan tahay waalidka ma ogo dadkan banaanka ma ogaan you know noloshaada ku jirta adiga asaga la is ogdiin so you cannot come to me into you ma ninkan waa xun yahay fur wariya ani furay adi ma nin ii noqonaysa adi hooyaday le tahay majority people say that wallahi mashallah you've been through so much. It's good to see you happy. And some people are saying, "Stop that about guri gabadhu soo gelisay." Hadii laga xoogay. Stress le ma hine wax kale ee rabaan oo kugu furaan adduunka markaysid. Maalin kasta negativity. Oh, nimanka ilmaha dhala oo ay ilmahooda sameynaaye step fathers fiican aba adduunka jiro. Ani I was wallahi gabadhan ay adeerkeeda oo fiican in la dhaafo ma sha Allah idaha. Ma sha Allah. Marka ani kaliya soo korinay wallahi futada dabada futada farqi gali jirto. Hadda right now anigan way respect garasaasin way dhageysataa. Abeen ma soo kori. Ani kaliya soo korinay hadda ilaahay nin wanaagsan haduu ilaahay ما بايدون Somali inta fiican laga dhageystaa inta kalena abaayada hadda nala saaran oo kale maskiin waaye wax kasta inay uga jawaabtay jeceshahay adiga not like that I'm way too American. No, I try to explain everything her sister ani wahi iska qof isku faraxsan waqti kasto irka ka jirta saas natural waa ilaahay iga soo uumi if I try to explain them they still pushing me something I'm not waxa adiga heena dushila iga saara okay fine I am what you want me to be maxaa sameeyna no sometimes waxa markaadan ka hadlan you know buuqas wuu damaya laakiin mar if you trying to explain them with them idea listen about wallahi honestly there was once upon a time alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh there was once upon a time that where I was weak minded where I always answered people then I realized I'm keep answering I'm not benefiting anything I'm not gaining anything out of this I answer the question I acknowledge people yet they don't leave me alone.